Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa idin wada salaamayaa meel walba dunida ka joogtaan. Maasha Allah. Waa walaashin soo daxiina. Maanta waxay idin wadaa cilaan yaroo fudud. Cilaan yaroo qurux badan. Maasha Allah waa isku dayi kartaan. Waa baraaweyn kartaan. Gabdhaha ay soo weydiinaya walaaladeyga sida cilaanka loo baran karo. Cilaanka waxaa loo baran karaa walaalo inaad isku daydo horta. Inaad baraaweysa inaad sawiri karto ubaxa yaryar waa ka bilaabi kartaa marka hore. Waa isku dayi waad khaldi kartaa wax dhiba ma lahan. Wax walbo loo rafaado unbaa la keenaa. Marka wax baranayso waad ogtiin dhib badanaa la maraa. Marka hore waad khaldi, mar labaad waad khaldi, mar saddexaad waad haleyn kartaa. Muhiimadu waxaa weeye marka u dambeysa waa keenaysaa insha Allah. Niyadana saasaa la geliyaa. Wax wanaagsan baa la geliyaa. Waadna keenaysaan. Dadaalkiisa haddaa muujisid wixii waad sameyni. Cilaanka hadda Ilaahay qof walbaba oo hadda macallin buu sii leeyahay waad ogtiin. Hadda dad caleen yar oo qurux badan aragto iska soo qaad. Waad soo qaadan kartaa qalin waraaqad yar. Waad isku dayi kartaa inaad marka hore sawirto. Kadib waxaad isku dayi inaad gacantaada marin karto. Sidaasaad ku keeni kartaa ubaxa. Inta badan inaad baraaweyso horta isku fiiriso. Waad khaldi kartaa, waad nasixi kartaa. Mar waad soo yar dhaweyn kartaa. Mar labaad hadda isku daydo waad sameyni. Mar saddexaad waad keenaysaa aakhir. Muhiimadu waxaa waaye inaad dadaalkeedina muujiso. Inaad hadda design yar oo qurux badan haddaad aragto oo ishaada soo qabatay isku day isku baraawey maanta bari isku baraawey. Waxaad fiirsaa meesha ubaxa qofku ka bilaabayo. Muhiimadu waxaa weeye hadda ubaxa soo ma bilaabin. Ubaxa meel baa laga bilaabaa. Isagoo laynka dheer iskama bilaabanayo. Geedka Soomaali waxay dhahdaa hoosaa laga soo koraa Soomaa. Ubaxana waxaa laga bilaabaa wax yar marka dambe lagu dadarayaa oo la soo qurxinaya. Laakiin marka hore caleen yar ka bilaabaysa hadda waa arkaysay laan yar jeeda caleen yar. Kadib aad sii qurxinaysaa. Marka waad ka daba bilaabi waad istaajisani buus dheh fiidiyooga. Ka daba samee insha Allah. Waxaan rajaynayaa gabar walba walaashay oo jecel cilaanka inay barato inuu Ilaahay u dhib yareeyo. Inay barato design-ka saxda ay keento. Iyadana sadeedan ku anfaca ku faa'iido. Ilmaheeda walaaladeed ehelkeeda ma haddii rabtana ku shaqaysato haddii rabto isku qurxiso ilmaheeda ku qurxisato. Cilaanka waxyaabaha wuxuu ka mid yahay inaan ka maarmin haddaan gabdho nahay oo u baahan nahay 24 hour haddii aroos noqoto. Haddiiba aroosayn xitaa oo anytime baan isku qurxinaa ilmaheena yararka inuu waxaan ku bilownaa ilmuhu 2 sano jiro inuu mana deyno cilaan waa iska marsanaa forever ilaa laga jiidanayo Ilaahay cimri dheer hayna siiye. Marka gabdhaha walaalay waxaan ku boorinayaa cilaanka maasha Allah wallahi iska wada barta oo idin anfacaya. Marka baranaysin dhib waad la kulmi laakiin ha u joojinin baan ku leeyahay gabar walba Soomaali oo jecel inay cilaan barato walaashiya ama gabar walba waxay rabtaba ha ahaato dunida meel bay ka joogto. Gabadhi jecel cilaan inay barato wax walba dhib baa loo maraa insha Allah waana gaaraysaa guusheeda inaan niyada taageeraysaa muhiima. Wax macallin hadda cilaan oo ana ugu wata cilaanka lambar 1 qof igama gaaro ku dhahayo ma jirto. Qof walba wax soo dhigaya muhiimadeeda maaha inuu leeyahay aniga ugu laacibsan maya. Waa laga sii laacibsan yahay adiga laacib walba laacib buu sii leeyahay. Kaliya wuxuu rabaa inta uu yaqaan inuu soo bandhigo uu dadaalkiisa muujiyo sifo walaaladiis uga sii faa'iidaan waa inta muhiimada. Gabdhaha walaalada waxaan leeyahay soo dhawaada maasha Allah barashada cilaanka gabdhaha jecel Ilaahay idin dhib yareeyo idinka aniga dhamaanteenba. Wax walbana dadaal buu leeyahay kaliya waxaan idinku waaninayaa barashada cilaanka dad jeceshiin Ilaahayna tala saarta insha Allah iskuna daya dadaalkeeda la imaada waa ku guuleysanaysaan biidnillaahi kariim baay macaan insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Dhammaan soo dhawaada subscribe-ka like-ta share-ka iga baqaylina xaqiina.